بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed. waxaan leeyahay Ramadaan mubaarak. maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo fadliga uu leeyahay Laylatul Qadriga iyo calaamadaha lagu garto. habeenka Laylatul Qadriga waxaa soo degaya malaa'ig, waxayna la soo degayaan khayr iyo barako. waxaa la qadaraa oo la jaangooyaa risqiga iyo ajasha iyo wax walba oo sanadkaas oo dhan dhacayo. habeenkaasi waxay ka qayr badan tahay 1000 bilood oo u dhigmata 83 sano iyo dhowr bilood. habeenka Laylatul Qadriga ah waa habeen deganaan iyo xasilooni badan, nabadgelyona ay jirto, sidoo Allah subxaanahu wa ta'ala quraankiisa ku yiri salaamun hiya hatta madla'il fajr. nabadgelyo ayaa aaday ilaa uu waga ka dilaaco habeenkaasi. dambiga ayaa loo dhaafaa qofkii u istaaga habeenkaasi oo cibaadeysta. calaamadaha lagu garto habeenkaasi: qoraxda ayaa soo baxaysa iyadoo shucaac iyo kuleel aan lahayn. nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri taxarraw laylatal qadri fi al-witr min al-ashr al-awaakhir min Ramadan. laylatul qadri waxaad ka raadaysaan tobanka dambe ee tirooyinka witriga ah: 21 23 25 27 29 iyo 30. meelahaas ka raadi ayuu yiri sallallahu alayhi wasallam. haddaan la kulmo maxaa akhrisanaya ducada akhrisanaya. Aisha radiyallahu anha waxay tiri rasuulka Ilaahay ayaan weydiiyay, waxaan ku yiri haddaan ogaado oo habeenkaasi maxaan dhahayaa. nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri waxaad dhahdaa Allahumma innaka cafuwun tuhibbul afwa fa'fu canna. Allahumma innaka cafuwun tuhibbul afwa fa'fu canna. Ilaahay dhamaantan hanala kulmiyo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.